aasiyo waa ka xunahay geeridii ku timi bilaal wuxuu ahaa wiil aad u da'yar waana ka xunahay alluunba og sababta aad iyo aad ayaan uga xunnahay geeridii ku timi wiilkaaga yaraa reerkaygoo dhan baa kuu soo ducaynayey aniga iyo ninkayga tawakalla waan kuu soo ducaynay samir iyo iimaan ilaahay ha kaa siiyo waad mahadsan tahay deeqa runtii dhibaato ayaana soo gaadhay dhib aad u weyn ayaana soo gaadhay weli waan aamini la'ahay inuu wiilkaygii dhintay iyo inuu budhcadbadeed ahaa ma jiraa waxaad dareentay waxaad is leedahay sabab ay u noqdeen in dadkaas si qaldan u raaco inankaagu maya waxba ma dareemin tawakal lacagna ma uusan haysan saacado badanna ma uusan maqnaan jirin waxaan rabaa walaa in hal su'aal ku weydiiyo ma jiraan waxyaabo shaki kugu abuuray oo isagu samayn jiray iskuulka iyo kubadda cagta ayuu aadi jiray kubadda cagta waan gartay ma dhib baa ka jiray kubadda cagta maya aasiya waxba ma jiraan iska dhaaf waan ka xumahay xaaladdaad haatan ku jirto waxaan qiyaasi karaa maaha in aan wiilkaaga soo duugatid waxa aan rabaa inaad iga caawisaan oo gacanta aad ku soo dhigtaan dadkii bilaal duufsaday budhcadbadeednimo bilaal waxa uu ahaa wiil yaroo fiican waxa aan rabaa inaan arko dembiilayaasha oo aan indhaha u saaro waan ku ballanqaadayaa middaas aasiya bilaal cadaalad ayaa u heli doonaa waana soo qaban doonaa dembiilayaasha mar dambena anigu ma oggolaan doono in carruurteenna yari ay ku dhintaan fal budhcadbadeednimo ah inta anigu joogo mana dhici doonto towbare waxaad tahay towbarihii ugu wanaagsanaa eena soo mara abid maxaad rabtaa ehlumirqaan yahow nasiib ayaad leedahay towbare oo saxafi ma ihi haddii aan ahaan lahaa saacan waan ku kashifi lahaa runtii waxaan isweyddiiyaa sidee uu u sameeyey waxa aad samaysay oo aad labakaarle ku noqotay adigoona midna aadan tuurin majaadkii ayaa daroogo kale laguu qasay maanta maxaad ugu hadlaysaa sidii qof daroogo ka soo dhergay maxaad rabtaa adiga towbare isdeji waan ogahay waxaad ku howlan tahay laakiin afkayga ayaan qabsanayaa cidna u sheegi maayo laakiin mid ogow oo daaqsan kama jirto meel si bilaash ah loogu qadeeyo marka waad inaad isgarataa si aan aniguna kuu garto la socotaas warbax wariya axmaqnimada iska dhaaf waan ogahay sirtaada haddii aan baxo waxaan si toos ah ugu tegayaa saldhigga booliiska waan maqlay in aad mooge ka dhigtay qof waalan maalintii koobka kubadda cagta la ciyaarayey laakiin ma og tahay haddii aan anigu warbixintan booliiska u geeyo inay baaritaan kugu bilaabi doonaan ma dhici doontaa inay iska indhitiraan taasi joofle oo miyaad irakaataynaysaa maya saaxiib kuma rakaataynayo adiga iin ayaad leedahay aniguna iin ayaan leeyahay ee aan iscaawino maxaad ka leedahay arrintaas ma hubtaa haddii aan wax kuu qabto inaadan ii sheegi doonin 100% $3,000 isii waan iska aamusi doonaa inta cimrigayga ka dhimin haye 2 saacood kadib aan is aragno lacagta ayaan kuu soo qaadayaaye warka ayaa ku dhan adiga qof kaa fiican maba jiro waxaasina maxaa waaye jooflaas xun wuxuu rabaa inaan laaluusho wuxuu ogaaday arrintii aniga budhcadbadeednimada ku saabsaneed marka maxaad samayn doontaa waxaan samayn doonaa wax aan ku fiicannahay oo waan ka taqallusayaa joofle rabbigiis ayuu aadi doonaa 2 saacadood kadib markaas xisaabtiisu alla ayay la jirtaa haye towbare farxad bay ii tahay inaad wakhtigii ilaalisay oo xilligii ballantu timaadday waxaan rajaynayaa inaad lacagtii soo qaadday maxaad ka waddaa towbare ma waxaad u malaynaysaa inaan kaftamayey markii aan ku yidhi sirtaada ayaan kor iyo hoosba ugu dhawaaqi doonaa si ay dadka reer daaqsan oo dhan u maqlaan waxa aad weddid yaad kor iyo hoos ugu sheegi doontaa marka aad 2 mitir dhulka hoos uga martid maxaad ka waddaa waxaas aawi lacagtaydii doqon baad tahay haddii aad u malaynaysid inaan lacag ku siin doono ma waxaad u malaynaysaa inaad ihandadi kartid qashin baad tahay towbare naga dhaaf yaakhay heshiiskeennu sidaas ma ahayn aniga weligayba heshiis kulama gelin oo hadda hunguriweynida iyo doqonnimada darteed ayaa dhul iyo cirba laga qarin doonaa allah ilaahayow hadda waxaas ma qoriba
weliba qori beenbeeney ma ahan sababtoo ah aniga halkan uma imaanin inaan kula ciyaaro haye waxaan u malaynayay inaad soo tukatay salaaddii ugu dambaysay adduunka maanta alle xaggiisa ayaa lagu dirayaa gacmaha kor u taag dhig meela ka arki karo tababaray haddii aad sidaa yeeli weydo waan ku tooganayaa sahanka